السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله سوماليات ميل والبا عالم ka joogtaan waxaan idin leeyahay waan idin wada salaamayaa salaamka bacdi barnaamijkeeni aan kusii guda jirnaa oo ahay yay dani ugu jirtaa dagaal sokeeye runtii kama daali doono wax sheegidda aan u sheegayo walaalahayga Soomaaliyeed waayo walaalahayga Soomaaliyeed waxaa ragaadiyay dagaal ayaa na ragaadiyay walaalayaal dagaalkaas na ragaadiyay yay dani ugu jirtaa kama daali doono walaalayaalo Soomaaliyeed dagaal sokeeye waxay dani ugu jirtaa ninka ilmihiisa iyo xaasaskiisa geesta dibadda oo ku noolaanaya nolol raaxo leh ilmahooda u baranaya jaamacado u baranaya waxbarashatii ugu sareysay dagaal sokeeye ninkaas ayay dani ugu jirtaa okay maxaa su'aasha isweydiinta mudan marka ninkaasi siyaasiga sheegtay oo diblomaasiga ah oo ummadan u adeegaya dhahaya oo ummadiisaasi oo aan cadaalad xataa aqoonin sidoo cadaalad ugu sameeyo oo san aqoonin ya walaalayaal sidee ninkaasi wadan ku xukumaya way su'aasha isweydiinta mudan walaalayaal asiga ilmihiisa wuxuu geystay dal shisheeye asigana wuxuu rabaa inuu madaxweyne ka noqdo Soomaaliya oo uu leeyahay Soomaaliyaan ahay waxaan rabaa inaan ummadda u adeego soo ummadda ugu adeegaya walaalayaal haddii ilmihiisa dibadda uu geystay aqliyan bil aqli walaalayaal yaa ilmihiisa reerkiisa waxa ugu soo tagay dibadda ugu soo tagay walaalayaal xikmadda ku jirto maxay tahay inuu asiga madaxtooyada ku raaxaysto ilmihiisana ay dibadda ku raaxaystaan shacabkana ay kadeed ku jiraan mar walba la qarxinayo yay dani ugu jirtaa ma ninka la qarxinayo oo la gumaadayo dhiigiisa la cabaya miyaa dan ugu jirtaa mise ninka ilmihiisa dibadda geystay ee asiga madaxtooyada ku raaxaysanaya oo mar walba diyaarad raacaya soo raacaya yay dani ugu jirtaa dagaal sokeeye walaalayaal waxaa la rabaa aqligeena saliimka ah inuu shaqeeyo Soomaaliyey waad hurdaane toosa hurdada ka kaca meeqa sana ayaa dhibaato ku jirtiin laakiin waxaan aaminsanahay sida aniga aan hadda wax u fahmay inay dadkayga kalena ay wax u fahansan yihiin way jirtay waqti shacabka wax fahansanaan jirin oo qofkiisa oo qabiiliga ah oo madaxweyne noqday oo iska taageeri jiray qabiilkeygii waay ninkan waa inaad taageeraa way jirtay waqti oo sidaas sameyn jirnay laakiin hadda tabcan bulshada way macaanaatay ninka qabiiliga ah oo shacabkan ka hadlaya markuu arkay ninkiisa qabiiliga kala ah oo madaxweyne ah ama xil kale uu haayo shacabku wuxuu ogaaday qabiilkaasi wuxuu ogaaday inuusan kaafin karin ninkaas shakhsiga ah qabiilkiisa uusan kaafin karin tusaale ahaan nin shiiqaal ah ayaa wadanka wax ka noqday ninkaas shiiqaalka ah wuxuu kaafin karaa oo kaliya xigtadiisa dhowdhow ee shiiqaal oo dhan ma wada kaafin karo idan markii xigtadiisa uu kaafiyo ninka kale shiiqaalka ah oo gaajaysan yahay oo qarax ku dhimanaya oo rafaadsan sidee marka ninkaasi shiiqaalka oo madaxweynaha ah soo u taageeraya akhiiran wuxuu fahmayaa dhagarta iyo hagardaamada ay ku haayo qabiiladiisa kale oo asig ka soo jeeda walaalayaal maxaa yeelay awoodiisa ay ka badnaan weysayba
in xigtadiisa dhow ilma adeertiisa ilma habaryaashiisa ilma eedooyinkiisa ma fahmintay ka badan waxba ma sameyn karo macnaha kistaasna dadkaas xataa wax ma siin laheene waxaa ku qasabtay inuu ammaankiisa ku sugto inuu maaragta garbihiisa laga istaagnaado oo walaalo la yiraahdo yani asiga caafimaadkiisa iyo wuxuu ka fikiray iyo amnigiisa uu ka fikiray walaal hamoodin jecel oo u qabo inuu wax u sameeyo kuwaasna wax u tari waayo may sida ma xigtadiisa wuxuu u soo dhaweystaa waxay tahay inuu caafimaadkiisa iyo amnigiisa ku ilaashado walaalayaal marka waxaa la fahmay marka shacabkii waa bislaaday noocyadiisa kala duwan wuxuu ogaaday dhagarta iyo hagardaamada ku haayo ninka siyaasiga aclooshiisa u shaqaystaha hagardaamadiisa waa la fahmo walaal ninka siyaasiga waqti xaadirkan waxaan leeyahay ha isdaalinin shacab weynaha waa ku fahmay qabiilka rabta ahaaw saarabtid ahaaw aqoontaa rabtid isku day inaa bulshada u sheegtid waxaa rabtid ku day shacab weynaha waa bislaad shacab weynaha maanta waxa u baahan yahay haddaba ninkaas siyaasiga dardaaran yaraan ku siinayaa oo aad ku noqon kartid madaxweyne dardaarankayga wax kale ma ah haddaa rabtid kursigaasi madaxtooyada yaalla ee macaanka badan wuxuu macaan kugu noqon karaa ama waxaad ku hanan kartaa kursigaasi wax kale ma ah waa inaad shacabkaagii daacadnimo ugu adeegtaa waa inaad u soo bandhigtaa barnaamij oo shacabka oo adiga aad rabtid inaad xukuntid kugu aamini karo barnaamij dhaxalgal oo shacabka dan u oo maaragtay shabaabkeena 75 lagu qiyaaso boqolkiiba oo dan u noqon karta oo shabaabka ku soo jiidan karta barnaamijka asiga haddaad la imaadid waxa laga yaabaa kursigaas macaan inaad ku naalootid walaal kursigaas macaan 4 sano ku fadhinaysa 4 sano haddaa isdhahdid maxaa iga gala 4 sano haystaa waa raaxaysanaya wixii ka dambeeyana dibadaydaasaan ku noolaanaya laakiin waxaan ku sheegayaa 4 sano inay wax yar tahay u baahnaan doontid 4 sano kala dheeri sida qaanuunka ama sharciga dhigaya in qofka 8 sano uu wadan xukumi karo haddaba hadday sidaa adi aad rabtid oo kale waxaa kula habboon inaad samaysid barnaamij dhaxalgal kaa daacad waa inaad la imaan kartaa barnaamijkaas maxaa ka mid walaal waa inaad ehelkaagi xigtada dhow oo ilmaha adi aad dhashay waa inaad wadanka ku soo celisaa marka ugu horeyso waa inaad shacabka tustaa in oo ma aragtay ay la mid yihiin shacabka iyo ilmaha dhashay waa inay isku mid ahaadaan aadan kala soocin marka waxaa la rabaa shacab weynaha wax kasta waa soo ogaaday 30 sano sida anigaba aan wax u ogaaday yay dabcan shacabki intiisa kalena sidaas isi ka fiican wax u fahmeen walaalayaal marka waxa weeyaan ma dhahaaya aniga madaxweynaha hadda xilkiisa haaya maxamed cabdullaahi farmaajo oo 4 sano ka dhamaan rabta ma dhahaaya asiga fiican ama asiga xun ma dhahaaya shacabka ayaa ka jawaabaya shacab weynaha wax kasta way u muuqdaan walaalayaal 2000 ilaa hadeertan 2020 kan sano inta u dhaxaysay xilalka sida loo soo kala qabtay iyo sidii wax loo soo kala noqday iyo sidii barnaamijyadooda qof walba madaxweyne walba barnaamijkiisa 4 sano waa la soo ogaaday 4 sano hadda ugu dambayso xaalka uu wadanku ku sugan yahay iyo sanawaadkii la soo dhaafay farqi weyn ayaa u dhaxeeya marka shacab weynaha waxay rabaan in nin shakhsi oo fiican doorsoon jecel wadaninimo ku dheehan tahay nin oo wadani ayay rabaan wadan shacabka Soomaaliyeed nin wadani ayay maanta u baahan yihiin haddaba barnaamijkeeni oo yay dani ugu jirtaa
dagaal sokeeyay dani ugu jirtaa su-aashaasi jawaabteeda mar walba shacabweynaha waa inaan ugu soo khatimaa waxaa dan ugu jirta ninka caadaystay dhiigga soomaaliyeed ninka caadaystay xoolaha soomaaliyeed ninka caadaystay waxaa dani ugu jirtaa dagaal sokeeye ninka u maleeyey in diyaarad la raaco lasoo raaxo u arkay dhiiggaas daadanayo uu waxba yacni shaqo ku lahayn oo markii oo maaragtay meediyaha soo istaagaya dhahaya innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allaha u naxariisto inta qarax ku dhaawacmatay iyo eheladoodii ilaahay subxaanahu wa tacaala sabir iyo iimaan allaha ka siiyo ninka dhahaya ayaa dani ugu jirtaa dagaal sokeeye ninkaasay dani ugu jirtaa soomaaliyey toosa soomaaliyey hurdada ka kaca soomaaliyey damiirkiina ha shaqeeyo wuu shaqeeyey wallaahi soomaalida waxbay fahantay wallaahi shacab weynaha dhammaantiisa soomaaliya meel walba uu ka joogo wax buu fahmay kan dibadda joogo oo aniga aan ka mid ahay sida ani aan wax u fahmay iyo si ka fiican ayuu wax u fahmeen soomaalida oo dhanba marka waa ku dheeraaday videogan markaan soo gelinayo aad iyo aad ayuu igu cuslaadaa marka inaan daqiiqadaha soo kookoobo waa ku qasbanahay marka waxaan yara kusoo gabagabeynayaa duco yar oo ilaahayna rajaynayo inuu ilaahay naga aqbalo ducadaas walaalayaal samada mar walba ilaahay xaggiisa way ka furan tahay ilaahay mar walba ducadeena mustajaabo ayuu ka dhigaa bal insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa commentiyadiina aamiinta inaad kusoo badin doontaan hadduu ilaahay awoodda lihi ogolaado ducadeennan ilaahay ha naga aqbalo walaalayaal اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح بلادنا اللهم أصلح صومال اللهم أصلح صومال اللهم أصلح شعب الصوماليين اللهم أصلح شعب الصومال اللهم أصلح جميع الصوماليين يا رب العالمين أحوالهم إلهي يا ربي رحمانه قلوبتنا نو طهري إله قلوبتنا نوذ المذي إله قلوبتنا نوذ المذي إله ودن كينا الصوماليا خيرات بدن أيا إلهي إنو سيسي دول كينا وبركيسي إله بركدي ساسي نو بركي إلهي دول كينا بركيسن نو بركي إله دول كينا بركيسن نو بركي إلهي دول كينا إي ودن كيني إي شعب كيني نينك هاقردامدا كوهايا أو دقرت كوهايا إلهو نقبو noocuu rabo ha ahaado waddankuu rabo ha u dhashto noocuu doono ha ahaado qabiilkuu rabo ha ka soo jeedo wuxuu rabo ha ahaado ilaahayo rabbiyo raxmaanow qof kasto oo waddankaasi dhibaato ku ah ilaahayo rabbiyo raxmaanow naga qabo ilaahow adiga ayaa awood iska leh awooddaada ilaahow inoogu qabo ilaahow waddankeena noo hagaaji allaahumma rabbanaa aatinaa fi ddunyaa xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.